mowduucan waxaynu ku qaadaa dhigaynaa sheekada geesigii cilmiga mid ka mid ah raggii ugu waaweynaa ee u istaagay difaaca caqiidada markii ay dadka oo dhan gariireen cabsi darteed. waa taariikhda ninka loogu magacdaray imaamka ahlusunna waljamaaca. waxaynu u kurgalaynaa noloshii, dhibaatadii iyo guushii imaam axmed binu xambal, allah u naxariistee. wuxuu keligiis ishortaagay dowlad dhan, ugu dambaynna isaga ayaa guulaystay. laakiin sidee hal nin uu u hor istaagi karaa dowlad dhan isaga oo difaacaya hal kelmad? waa su-aasha ugu xiisaha badan ee sheekada nuxurka u yeelaysa. nala soco, halkan waa itaal miidiya, aniguna waa aways xaaji nuur, aways aar. waxay ahayd bishii rabiicul awal sannadkii 164 hijriyada markii uu magaalada baqhdaad ku dhashay wiil yar oo loogu magacdaray axmed binu maxamed binu xambal. baqhdaad xilligaas waxa ay ahayd xarunta cilmiga adduunka. sannad dahabi ah iyo magaalo muhiim ah ayuu ku dhashay imaam axmed, laakiin kuma soo barbaarin guri qasri ah iyo nolol raaxa leh. wuxuu ku dhashay kuna koray agoonnimo iyo nolol saboolnimo ah kadib markii uu aabbihiis dhintay isaga oo 3 jir ah. waxaa dhabarka u ridatay korintiisa iyo barbaarintiisba hooyadiis safiya bintu xamiid. safiya ma ahayn hooyo caadi ah, waxay ahayd qof taqaana qiimaha cilmiga. waxay wiilkeedii kicin jirtay saacadaha dambe ee habeenka si uu u barto qur'aanka, waxayna u kaxayn jirtay masjidka ka hor inta aanu waagu baryin si uu salaada subax jamaacada ula tukado. waxay ku dhiirigelin jirtay inuu noqdo u adeegaha diinta islaamka. axmed binu xambal markii uu weynaaday ma uusan noqon qof ku qanca cilmiga kooban ee agtiisa yaalla oo keliya. wuxuu noqday mid ka mid ah dadka ugu safarka badan taariikhda islaamka. wuxuu u safray magaalooyinka kuufa iyo basra ee dalka ciraaq, magaalooyinka maka iyo madiina ee dhulka xijaaz, dalka suuriya iyo xitaa dalka yeman oo aad uga fog meesha uu ku dhashay. safaradaasi ma ahayn kuwa raaxa leh. wuxuu ku safreeyey lugtiisa, ma heli karin gaadiid uu raaco. mararka qaar isaga oo aan weli gaarin halkii uu u socday ayay sahaydu ka dhammaanaysay. si uu cunto u helo waxa uu u shaqayn jiray dadka ku nool deegaanada uu sii marayo. inta yarta ah ee uu ka helo ayuu nooli ka dhigan jiray. xilliyadaasi uu cilmiga raadinayay waxa uu la kulmay culimmadii islaamka ee ugu waaweyneyd adduunka. laakiin la kulankiisii uu la kulmay imaamu shaafici waxa uu ahaa midkii beddelay noloshiisa. markii uu imaam shaafici la kulmay wuxuu dareemay in uu nasiib u yeeshay la kulanka qofkii ugu mudnaa in uu aqoonta islaamka ka kororsado. wuu ku farxay kana faa'iidaystay fursaddaasi muhimka ah ee uu helay. imaam shaafici laftigiisii waxa uu la yaabay garaadka iyo dhowrsanaanta axmed binu xambal, isagoo yidhi marnaba baqhdaad uguma tegin qof ka cilmi, ka dhowrsasho iyo faham badan axmed binu xambal. imaam axmed waxa uu ahaa qof nolosha u arka fursad loogu adeego diinta islaamka, isagoo marna aan ka daalin ururinta axaadiista nebiga sala allahu calayhi wasalam. hase yeeshee nolosha imaam axmed waxaa soo wajahay imtixaankii ugu adkaa ee caalim muslim ah soo mara adduunkan dushiisa. sannadkii 218 hijriyada waxaa dunida islaamka ku faafay fakar ay wadeen kooxdii muctasilada, taasoo ahayd in qur'aanku uu yahay makhluuq ama wax la abuuray. khaliifkii wakhtigaasi xukumayey ee alma'muun ayaa qaatay fikirkaas, wuxuuna amar ku bixiyey in culimmada oo dhan lagu qasbo in ay rumeeyaan oo ay la qaataan fikirka. culimo badan ayaa cabsi ay ka qabeen dhimasho darteed u tanaasulay oo aamusay ama afka ka qiray in ay khaliifka ku raacsan yihiin aragtidiisii si ay nafsadoodii u badbaadsadaan. laakiin imaam axmed waxa uu go'aansaday in uu keligiisii istaago oo uu xaqa difaaco. wuxuu yidhi hadal taariikhda galay oo ahaa, haddii uu caalimku aamuso jaahilkuna uusan garanaynin xaqa, goorma ayaa runta la ogaanayaa? inta silsilado lagu xiray ayaa loo kaxeeyey xabsiga si halkaasi loogu ciqaabo. muddo ka badan 15 sano imaam axmed waxa uu u dhexeeyey xabsiyo kala duwan oo ciqaab ahaanna kala culus. 3 khaliif oo maamul ahaan isku xigay ayaa kula kacay tacaddi xanuun badan. waxay u geysteen xarig, ihaano iyo jirdil aan la qiyaasi karin. waxaa la sheegaa xilligii uu dowladda hogaaminayay almuctasim in imaamka loo soo saari jiray fagaaraha isaga oo sooman, kadibna
lagu garaaci jiray karbaash aad u daran oo xitaa maroodi lagu xanuunjin karo. askartu waxa ay ku dhihi jireen, maxaad leedahay, caddee aragtidaada. isaga oo dhiigaya ayuu ku jawaabi jiray, ii keena caddayn ka timid kitaabka alle iyo sunnada nebiga sallallahu calayhi wasallam. adkaysiga iyo dulqaadka intaas la eg wuxuu noqday mid ruxay quluubta dadka muslimiinta ah, wuxuuna badbaadiyey caqiidada saxda ah ee ummadda islaamka. ugu dambayntii, daruurtii madoobeed way baxday. hogaamiyaashii dhibka u geysanayay gabalkoodii ayaa dhacay. khaliifkii almutawakil ayaa xukunka qabtay, wuxuuna soo afjaray fidnadii taagnayd. imaam axmed waxa uu u soo celiyey sharaftiisii iyo xorriyaddiisii. inkasta oo xanuunka jirdilka uu ku reebay raadad jireed, haddana dadaalkiisii waxba uma dhimin. mar kale cilmigiisii ayaa u soo burqaday sidii webi oo kale. wuxuu qoray kitaabka weyn ee almusnad, kaas oo uu ku ururiyey in ka badan 40,000 oo xadiid oo uu ka soo dhex saaray 750,000 xadiid oo uu xifdisanaa, isaga oo noqday tixraaca koowaad ee culimmada xadiidka. sannadkii 241 hijriyada, nalkii weynaa ee ifinayay magaalada Baqdaad ayaa damay. waxaa adduunka macsalaameeyey imaam Axmed binu Xambal. wuxuu geeriyooday isaga oo jira 77 sano. maalintaas magaalada Baqdaad waxa ay u muuqatay in dhammaan dadkeedii ay wadooyinka u soo wada baxeen. taariikhyahanadu waxa ay qoraan in ku dhowaad 1 milyan oo qof ay ka qayb galeen aaskiisa, taasoo ahayd tiradii ugu badnayd abid ee ka qayb gasha aaska hal qof loo samaynayo. dadkaasi uma soo bixin keliya in ay qof aasaan, laakiin waxa ay u soo baxeen in ay macsalaameeyaan oo ay sharfaan ninkii u dhabar adeygay, u dulqaatay, kuna samray tacaddigii foosha xumaa ee loogu geystay in uu xaqa difaacayay dartiis. imaam axmed binu xambal waxa uu nooga tegay cashir muhim ah oo na baraya in cilmigu uusan ahayn akhris iyo qoris oo keliya, laakiin uu yahay ficil dhab ah iyo tallaabo geesinimo ku dhisan. wuxuuna barayaa in mabda'a oo lagu dhinto uu ka qaalisan yahay nolosha dulinimada ah. maanta madhabkiisa xambaliga iyo kutubtiisu waxa ay weli iftiin u yihiin malaayiin muslimiin ah. madhabka xambaliga oo ah kan afraad ee 4 madhab ee ahlu sunna wal jamaaca waxa uu caan ku yahay in uu si aad ah ugu dhow yahay naska qur'aanka iyo axaadiista nebiga sallallahu calayhi wasallam. inkasta oo uu yahay madhabka ugu dadka yar marka loo barbardhigo shaaficiga iyo xanafiga, haddana saamayntiisa dunida islaamka waa mid weyn oo muuqata. boqortooyada sacuudi carabiya waa rugta ugu weyn ee madhabka xambaliga dunida maanta. tan iyo markii la aasaasay dowladda sacuudiga, madhabka xambaliga waxa uu ahaa gundhiga xeerarka garsoorka, barashada diinta iyo fadwooyinka dalka. wadamada khaliijka, gaar ahaana kuwa deriska la ah sacuudiga, madhabka xambaliga waxa uu ku leeyahay taageerayaal badan iyo raad sharciyeed. qatar waxa uu u yahay madhabka rasmiga ah ee dalka, dadkuna ay inta badan raacsan yihiin. kuwait waxaa jooga culimo iyo qoysas badan oo xambali ah, inkasta oo madhabka maalikiga uu isna halkaas xoog ku leeyahay. imaaraadka, gaar ahaan ismaamulka sharja, waxaa jira deegaano iyo qabaa'il caan ku ah in ay raacsan yihiin madhabkan. gobolka shaam, suuriya iyo falastiin, inkasta oo suuriya ay caan ku tahay madhabka xanafiga iyo kan shaaficiga, haddana madhabka xambaliga waxa uu xidido ku leeyahay magaalooyinka qaar ee dalkaas. magaalada dimashq waxaa degan qoysas culimo u badan oo qarniyo badan soo siday calanka xambaliga, gaar ahaana xaafadda caanka ah ee al-saalixiya waxaa aad looga dhaqmaa xambaliga. nablus oo falastiin ka tirsan, magaaladan waxaa loo yaqaanaa baqdaadda yar, sababtoo ah waxa ay ahayd xarun weyn oo ay ku xoogan yihiin xambaliyiinta tan iyo xilli hore. maanta iyadoo ay jirto saamaynta waxbarashada iyo dacwada ka timaada sacuudiga, madhabka xambaliga waxa uu ku faafay meelo badan oo caalamka ah oo aan horay looga aqoon. arday badan oo ka kala yimid Afrika, koonfur bari Aasiya iyo reer galbeedka oo wax ka bartay jaamacadaha sacuudiga ayaa madhabkan u qaatay deegaanadooda. inkasta oo Soomaalidu ay 100% shaaficiyiin yihiin xagga cibaadada, haddana sanadihii dambe waxaa soo batay dhalinyarada iyo culimada wax ku barata manhajka xambaliga, gaar ahaana dhinaca aqoonta xadiidka iyo caqiidada. haddii aan si kooban u sheegno, meesha uu sida rasmiga ah ku xoogan yahay madhabka xambaliga waa jasiiradda carabta, gaar ahaana sacuudiga iyo qatar. allah u naxariisto imaamkii ahlu sunna,
imaam axmed binu xambal, allana hanaga yeelo kuwii ka faa'iidaysta dhaxalkiisa qaaliga ah. intaas ayaynu kusoo koobaynaa warbixintan oo aynu kusoo qaadannay taariikhdii imaam axmed binu xambal oo ka mid ah 4 imaam ee ahlu sunna waljamaaca. tan iyo mawduuca xiga oo aanu kusoo qaadan doonno taxanaha halyeeyada islaamka waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo amaana allah. halkan waa Italy Media.